وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قميصku ma sunno qofka laga abaal marinayaaba maya sunno maaha qamiisku. nabigu calayhi salaatu wasalaam qamiiska wuxuu u xidhay siduu u xidhan jiray macawsta. kaana yalbasu lqamiis kaana yatazir. caadata qowmihi buu ahaa dharkii qoomkiisa. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu xidhay xaggaas sunno ka noqon maayo. nebigu calayhi salaatu wasalaam xidhashadiisu caaday ku dhisnay. kuma dhisnayn waxa weeyaan cibaadanimo. laakiin shagi kuma jiro marka la eego curfu naas dadku dharka inay kala leeyihiin. marka qamiisku wuxuu noqday libaas alculamaa wa alabat alcilm. dharka culimada iyo alabat lcilmiga ayuu noqday. marka xaggaasu wanaagga ka wataa oo dee ay ka habboon tahay culimada iyo alabatulcilmiguba inay xidhaan. marka dadku hadday arkaan nin caalima ama sheekha shaar iyo surwaal xidhay yastaqribuun. dadka marka khudbadda la jeedinayo maxaa loo xidhaa khamiiska? nin weli shaar iyo surwaal ku khudbadayna jumca miad aragta? limaada? kadalika muxaadaraadka iyo duruusta iyo naadiran ay dadka qaarkood ka dhacday arrinkaa macruuf ku noqday. lakin xataa kaan xidhan maalintaa khamiis buu raadinaya. war muxaadara laygu soo qoray khamiiskana wa xidhay khamiis ii raadiya ba odhanaya. marka dhar culimo ayuu noqday iyo dhar alabatu cilmi ayuu noqday. allahu aclam. qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam laa yazaalu lisaanuka ratban min dikri. ma doonaysaa acmaasha wanaagsan o dham inay kuu fududaato, faral iyo sunnaba? ma doonaysaa xumaanta naftaada inaad ka reebto aad ka goysaa inay kuu fududaato? carabkaaga xuska ilaahay ha ka qoyanaado. macnaa kun muktira min dikr illah. waxaad noqotaa qof farabadinaya ilaahay subxana watacaala xuskiisa. asal llah alcadiim rab alcarshi alcadiim an yuciinana jamiica cala islaaxi anfusina waan yakfira lana waliaabaa'ina ummahaatina وللمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.